بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada dhammaantiin Hagarlaawo family iyo dhammaan asxaabta ku xiran boggeena Facebooka, YouTube-ka, TikTok-ga iyo Telegram-ka. Maanta waxaan wareysanaynaa ama caawa waxaan wareysanaynaa Cabdiqani Jaamac oo ka mid ah dadka ku guuleystay Hagarlaawo Academy. Cabdiqani wuxuu u manage gareeyay inuu lacag 3,000 kala baxo FTMO 100k. waxaan rabaa inuu Cabdiqani sida uu lacagta u sameeyey aynu itusoo itaabsi isla aragno, akoonkiisa dashboardkiisa isla aragno, lacagta usoo dhacday isla aragno, and everything xataa ilaa inta u sarrifayna isla aragno, wax kasta itusoo itaabsi ay noqdaan. sidoo kale waxaan rabnaa inaan anagu sheekayna Cabdiqani aan toos u wareysano oo dhahno haye Cabdiqani maxaad haysaa. marka Cabdiqaniyow wuu nala jooga. Cabdiqani soo dhawow, screenkaaga si fiican aan ugu jeednaa, akoon matrixkaaga waa u jeednaa. waxaan u jeedaa in akoonkaaga uu 103,000 uu aad gaarsiisay, 3,000 aan la baxday aan ku sarrifnay. marka horeysa soo dhow, magacaaga iyo meesha joogtid igu bilow. walaal waan dhowahay. magacaygu waa Cabdiqani Jaamac. waxaan joogaa magaalada Nairobi. waana dhowahay, soo dhawaada. maasha allah, Nairobi aad joogta. Cabdiqani aadan kuusoo dhaweynaya mar labaad. guushaada aadan ugu faraxsanahay, waana kaaga mahadcelinayaa inaad naga aqbashay Hagarlaawo family in aad aan kula yeelano wareysigan kooban. marka waxaan rabaa Cabdiqaniyow, lacagtana la baxday waa imisa, akoonkana imisu ahaa, shirkadu waa tee, bal overview Eh, yarigas. haa walaal waa mahadsan tahay. akoonkan 100,000 buu ahaa. shirkaduna waxa weeye waa FTMO. waxaan lacagtan la baxayna waxa weeye waa lacag 3,000 ah. marka waa kaas. okay, maasha allah. marka Cabdiqani 3,000 lacag fiican weeye, oo weliba markii hore inta akoon $500 lagaa siiyey aa gadatay. muxuu ahaaye akoonkii $3,000 ka samaysay. hadda aa haysatid uu ku yahay nin dukaan haysta, ugu yaraan ay $100,000 u dhex taalo. aan ku weydiiye marka forex journey-gaaga ama safarkaaga forex iga warran, goormaa soo bilowday marka u horeysa, xageedse ka wallahi bilowday? walaal wallahi walaal sakari, horta aad baad mahadsan tahay. su-aashaas waa su-aal muhiim weeye. forex muddo dheer xilli horaan soo bilaabay 2018 meelahaasaan soo bilaabay. laakiin xilligaas forex aan soo bilaabay wuxuu xilli aad soomaalidu si fiican forex lafteeda fahamsan tahay maahayn baan malaynaya. anoo wax la yidhaahdo ana wax fahamsiiyo oo si fiican ii haqabtira ma arkin ilaa xilligaa, ilaa sanadadan dambona waa iska soo daala dhacayay. mar waa ka niyad jabay. marka sanadkan bilaabay waxaa la odhan karaa forex waa 2018. laakiin sanadkan u malaynaya inaan profit wax samayn karo oo wax la soo baxay oo waxa weye waa sanadkan oo kolley uun Hagarlaawo sabab u yahay akaademiyadaas aan si directive ula socday. marka goorma annagana nagu soo biirtay si gaar ah, maadaama hore forex aad u bilowday oo waxa weeye annaga Hagarlaawo Academy goormaa maqashay, sidee u maqashay, goormaase nagu soo biirtay? walaal horta anoo forex ka niyad jabay oo qiyaasatan aanba faraha ka qaaday oo shaqooyinkayga kale iska bacsada, ayaa habeenada ka mid a waxaa yar telegramka waxay igu soo diraan saaxiib aan nahay kilib aad leedahay oo aad sharxayso suuqa, walba ninkaa dhegeyso igu yidhi. kilibkii baan xoogaa video 12 daqiiqo soconay uu ahaa. 12 daqiiqaan dhegeystay qaabkaad wax u dhigdhigayso iyo qaabkaad wax u sharxayso iyo wixii ila fudaaday. fasax baan ku jiray, muqdishaan joogay. maalintaasa waxaan go'aansaday bal inaan boorka dib isaga jafo, aan suuqii bal dib u fiiriyo. waxaan fiiriyey markaa akaademiyadda Hagarlaawo Academy aan magacii ku qoray. taasaa markaa waxaan casharadii iyo bal layfafkii iyo wixii baan halkaa kasii deegtay, waxbaa isu kay furay. ilaa intaa markaa waan nin hore isu dhiibay baan ahaa, laakiin upgrading cusub baan helay oo dhiirigelin fiican baan helay. markaa sanadkee bay ahayd markaas halifka iyo 2023 aragtay waxyaalaha publica? 2023 bay ahayd. sanadkii hore 23-kii. 23 bay ahayd. marka goormaa casharadeenna iyo iska diiwaangelisay oo nagu soo biirtay mise? wallaahi casharada jaanis uma helin inaan isdiiwaan geliyo, laakiin himiladayda iyo hamigayga inaan dee Hagarlaawo Academy ka mid noqdo oo qofka bini'aadanka inuu xaqiiqada
markuu trader yahay inuu xaqiiqada kuu sheegay waxba kuu qarin baa fiican. Haglab academy waxyaabaha aan ku jeclaada waxaa ka mid ah qofku wuxuu ku oranayaa Haglab academy Sakariya oo kale wuxuu ku leeyahay war suuqan de waana lagu khasaaraa waana lagu faa'iidaa, laakiin dadka qayb waxay ku oranayaan waayadii hore dadkeena waale waxay ahaayeen waxay oranayaan suuqan lacag baa taalla wixii yaraa oo dhan ba aan haysanayna waxaasaa naga cuni jiray. Marka akaademiyadan waxaan ula socday intaas qaab indirect ah oo live-afkaasaan ka qayb geli jiray oo live kasta waan taagnaan jiray. Marka markasta waxaa ii qorshaysanayd markaan lacag la baxo inaan maaragtay inaan akaademiyada toos ku biiro, alxamdulillah waana ku Mm. biira. Ah, okay, waxaan u malaynayaa dhowaan aan nagu soo biirtay haddii baa nagaga soo biirtay cabdiqanow, aada u mahadsan tahay, waa kusoo dhaweynaya oo mar walba waxaanu u taagannahay dhalinyarta Soomaaliyeed in ay qoladii wixii awooda aan u recommend garayno inay nagu soo biiraan, wixii aan awoodinna sida adiga oo kale sanad labo muddo adow nagala socday live streamka youtube-ka waxyaalaha firiga aan soo dhigno aa profitable ku noqotay adoon weliba akaademiyada gudaha usoo gelin aa wax badan fahantay, gudaha markaa usoo gashayna waxa weeye weliba aqoontaada aa sii kobcisay, aada ugu faraxsanahay walaalkay. Mar labaadna kusoo dhaweynaya. Aan kaa dhexgale admaasaan kaasii dhexgale adaa ku haystee anoo akaademiyadda aan haysan oo aan ka mid ahayn baan aad waan kuugu mahadcelinayaa ayaad oo ardayda ka mid ah ayaad soomaalinimo ii caawin jirtay oo aan kaala soo hadli jiray whatsappka oo wixii aan u baahda aad ii sheegi jirtay. Marka adigana si gaar aan kuugu mahadcelinayaa khaas baad ii tahay. Si lamida walaal aadaa kaaga qaaday waxa weeye kadib ftmo baa furatay. ftmo goormaa furatay akoonka 100,000 ftmo te kale akoomo hore ma kaaga horreeyeen? haa walaal horta waxaan furtay akoon shirkaddii myforex fan la odhan jiray. nasiib darro waxaan kusoo biiray xilli ay xamaamteeda sii urursanaysay. markaan face togii aan gabagaba ii yahay bay shirkaddaasi kacday. haddana waxaan galay federal crestigi marka shirkaddaasaan xoogaa iyada lacag kala baxbay 15,000 akoon aan ka qaatay. markii dambena akoonkii waa anaaba iska qarxiyey. markii dambe akoon ftmo baan qaatay anoo khaladaadkayga wixii oo dhan si fiican u nabadgareeyey. alxamdulillah ftmo intaas aan soo wadana hadda kole waa aniga ah wixii ilaahay iga qoray kala baxay. Okay, maasha allah. waxaan ku weydiinayaa marka hadda akoonkan in hor yaalla waa live akoonkaagii waa dashboardkaagii, hoos ma u riixi kartaa in yar aan aragna? haa wala okay. Okay, halkaa 2% waa loskaagii u weynaa ahaa, waa 1% waliba maximum loska muhiima. $3,000 waa ku dartay. Nice. Kan waa akoonkii aa lacagta kala baxday. Way kuu soo bedelayaan akoonka markaa lacagta kala baxayso mid kale ku siinaya. kan waa kii aa lacagta kala baxday. Okay, good. Hoos soco. Okay, statisticska haddaa eegno bal halka statisticska iga war average profitkaaga iyo average losskaaga. haa horta average profitkaygu 380 meelahaas u ahaa. average losskayguna wuxuu ahaa 125. taasina waxay ku timi kolley xagga kolley markaad suuqa ku jirto suuqan in badan waxaan kaa maqlay suuqan adigu malihid intaasoo qof oo kaa lacag badan baa meesha ku jirta directionkaada ku jirtidna dhinacaan ahayn buu aadi karaa. marka mar kastaba qofka waxaa welwelka ku abuura lodka uu isticmaalayo. marka lodadkayga aad isaga yara akoonka weynaado laakiin lodkaygu lod wuxuu iska ahaa 0.8 0.6 0.5 meelaha muusan dhaafin. Okay, masha allah. waayo waa runtaa sababta u garanaya waxa weeye loskaaga $63 $7 $125 qof 100,000 akoon haysta haddana intaa riski garaynaya ama khasaaraya waa very genius waaye. sababtoo ah dhalinyarta dhibta haysta waxa weeye qofkii 500 600 kun 2,000 buu hal mar rabaa inuu riski gareeyo, waa get rich quick. laakiin haddii qofku uu cabdiqano sidaada oo kale $380 hadda average profitkaagu waa $380 macnaha waxa weeye haddaa faa'iidaysid 380 faa'iidaa, haddaa khasaaraysidna 125 khasaartaa celcelis. marka isuma dhowo taas waa lacagta u samaysay. aad baanu kuugu faraxsanahay, waana risk management fiican baa kaa muuqda. tiradhada qaadatay waa 91 tiradh, laakiin saa ii sheegaysid maadaama aad
lodkaaga yar yaraysay, waxaan u maleynayaa tiradada saasaa badinaysa muddo bilana aad trade garaynaysa. aad iyo aad. Okay, cabdiqani maasha allah aadan kugu faraxsanahay. Waxaa ii sheegtaa maalintii tirado kuu qoran ma jiraan, iyo riski kuu qoran iyo balaanka raacdid, bal isaga iga war. Qorshaha raacdid. Ee, horta maalinta horta suuqa target baan ka leeyahay, tusaale ahaan akoonka weynaada laakiin wax weyn kama raadiyo. tusaale ahaan waxaan ka raadiyaa 250 meelahaasaan ka raadiyaa, 300 meelahaasaan markaa ugu bato ka raadiyaa. Maalintii. teeda kale haddii aan akoonka khasaaro, maalin haddaan ka koowaad khasaaro, ka labaad iyo ka koowaad gaab baan u dhaxaysiiyaa, interval baan u dhaxaysiiyaa. kaas haddii ka labaad aan khasaarana, maalintaa waan iskaga nastaa suuqa, waan iskaga hadhaaba. marka Okay, kolley balaankayga waxaan u malaynayaa saas buu ahaa. riski marka ma leedahay oo 250kaas tusaale haddaa khasaartay maalintii inaa ugu talagashay suuqa inaa ku khasaartid ma leedahay, mise waxay ku xiran maalintii tahay profitka iyo faa'iidada? maximumka aan iraado maanta suuqa aan uga baxo oo khasaaraha ugu sarreeya 500 hadduu suuqa siiyo oo minisa, maalinta waaba ka nastaa, maba aadam suuqa. Okay, 0.5 baa riski garaysaa. Okay, ha 0.5 baan iska leeyahay. maadaama wixii akoon layfa yahay FTMona kambaniga u fiican uu yahay, akoon ha fiicanna ka haysay haddeerna ay Soomaaliya weliba xireen. waxaan u maleynayaa dokumentigaaga waa Soomaaliya, oo Soomaaliya haddii ay tahay dadkii haystay oo kale adiga iyo dadkii haystay way u daynayaan akoomadii la haystay, laakiin wax cusub bay diideen inay aad aqbalaan aad aad Soomaaliya. Marka aad waxaan iyo kugula aad talinayaa inaa aada uga far adeegtid, sababtoo waa inaad aad dokumenti kale waddan kale markaa heshiid si aad markaa aad akoon kale u qaadatid kaagan adkayso insha Allah. Okay cabdiqanow, emailkii maytus emailkii noo geh payoutka. Okay, horta kan waa profitability. Phase 1 ma helaysaa? Waa kan, waa ag yaalaa aad meesha. aad iyo aad waxa weeye yar face Chrome onkii. kii hadda furan yahay. ah Oh, okay, waa kan ha. face This onkii waa is kan. phase 1 miya? Pass waa face FTMO onkii. challenge. Ha, 23 abriil bay ahayd. 23 Abriil baa gudubtay. Okay. passive verificationkii markaan ku baasayna wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo 22 May baan xoogaa farqi dheer baa i dhexeeya, dee iska diin baan ahaa, waa iska soo gurguuranay. sax wey inaad guurguuratid baa waxay ka fiican tahay in hal mar orodido. waxa weeye ah aad 2 bilood maqnaad. marka adigu ko ilaa 23 ilaa 21 bisha ku xigtay waa 28 cisho bay kugu qaateen phase 2 oo 5% aad dhaafisid. maasha ah Allah, consistency fiican baan ka arkaa. Okay, lifekii ma haysaa isaga kiila ama payout ah profitability? Okay, key profitability-na waa kan. 2.6k maasha Allah. Okay, Ah, emailkii kale haddaa na tusi kartid oo Binance-ga lacagta, si wax kasta aan u xaqiijino dhalinyarta Soomaaliyeedna ay u arkaan haddii qofku uu la yimaado rabitaan dhab ah iyo consistency uu gaari karay. may tab baa kuu furan kan payout ku qoran tahay, taabka kuu furan ka ku xiga weeyaan u malaynaya. waa kan taabka ku xiga kor. ah, xoogaa emailka dhexe wey, emailka ka load garanaysa ka ku xiga eeg. kan baa- sorry. ku dhufo anaa ku tusay, ku dhufo anaa ah ujeeda payoutkaaga. waka haa, bes inoo weynaya halka haba xogtaada insha allahu tacaala waa cidna arki mayso. inoo weyne haa, waa kanba. Okay, good. ma loo payoutka waxay jeedaa kuu si soo direen June 17keedii. ah waa okay, 10 days ago. marka consistency kaa muuqda. phase 1 bil baa ku baastay, phase 2 bil labaad baa ku baastay, lifekeena lacag kala baxay bil ku dhawaaday qaadatay. maasha Allah, waxa weeye wax kasta cabdiqani waa cad yihiin, dhaydana waa ka cad yihiin. lacagtiina waa kuu sarrifnay soo ma?
lacagtii waad ii sarifteen. Eh, lacagtii waad ii sarifteen markay ii soo dhacdayna waa tan. Eh, waa tan lacagtii. Binance-gaaga halkani. Binance-gayga waa kuwa markii lasoo dhigay, Mm. idinkaana ii sarifayba. ha ma inta kale bes anaa haya dhib male. En ka qayb kaga qayb qaadatay inaad qofuun Soomaaliyeed aad forex ku dhiirigelisid oo aad weliba ku dhiirigelisid hadduu toosnaado inuu consistency noqon karo lacag la bixi karo meel kastuu joogo. En okay, su-aalaha raba dhowr su-aalaha haddaba kuu rabaa aan rabaa inaan ku weydiiyo kaasi faa'iidaysto kadibna aan soo gaabino. Su-aasha koowaad waxay tahay forex, en, maxaa hadda ka aaminsan tahay right now, ama qof cusub oo kale oo forex muxuu yahay ama maxaa ku talinaya forex muxuu yahay, Wallahi maxaase ka aaminsan wallahi walaal horta meel forex lacag laga helo maya bise waa wallahi lacag baa lagu xaqiiqa. khasaaray. Horta Soomaalida dad badan waa iska aaminsan yihiin oo Soomaalidu waa dad aan runta marka laga hadlo xaqiiqada laga leexo waa dad aan xaqiiqada wajihin oo waxyaaba iska malaawaan iska aaminsan. Laakiin forex waa suuq noloshaada iyo horumarka qof raba oo raba inuu dad ka madax bannaanaado lacag ka samayn kara, ku naaloon kara. xorriyad baa meesha taalla oo weliba lacag fiican oo madaxweynuhu lacag uusan qaadan baad ka samayn kartaa iyo in ka badan. Laakiin waxay kaaga baahan tahay dadaal iyo karti dheereeye iyo waxyaaba badan oo la xidhiidha suuqan oo emotionkaaga iyo joogtaynkaaga iyo aaminitaankaaga iyo kalsooni waxaasoo dhan haddaad la timaado meesha waxaa taalla fursad aada u qaaliya. Marka waana ku faraxsanahay inaan rafaad badan maanta maasha Allah wax ka hayo dee safarkan hadda aan ku joogo iyadoo qayb ay ka tahay. Marka qof cusub waxaa dhihi lahayd meesha wax waa laga heli karaa laakiin waa aqoon iyo dhowr adayg iyo waxbarashay u baahan tahay. ha xaqiiqatan waxa weeye suuqan haddaad rabto inaad wax ka keento wuxuu u baahan yahay waxbarasho iyo dadaal iyo wax badan oo dulqaad u baahan yahay. laakiin meesha markasta waa meel lacag laga samayn karo lacagteedana waa xaqiiqo waana lacag aan cidna kaa xigin laakiin adigu meesha aad isdhigta ah. maasha Allah. Okay, emotionkaaga see u manage garaysaa oo tusaale inaa hasa ii sheegtay oo kale akoon fidal karista iska xumaysay kuwa hore waa soo qaadatay khasaare kale oo soo martay. Waxaana ii sheegaysay in emotionkaaga aa markii dambe ka adkaatay qoraal lacag ka samaysay oo aad ka nood garaystay khaladaadka samayn jirtay. Marka emotionka waxa la dhaho inuu qofku stoploskiisa raro, inuu muxuu ahaaye tv-ga isagoo loo gaarin hore u qaato, inuu lodka weyneeyo, inuu saq dhexe iska tarirgareeyo, inuu habeenkii oo dhan chartiga u jeedo ama maalintii oo dhan. Waxyaalahaas oo dhan waa emotion. Marka emotionkaaga see ku manage garaysa? horta sidaad baad mahadsan tahay. horta anigu habeenkii ma talagareeyo emotionkayga runtii waxyaabo badan baa iga soo dhacay khasaare badan oo hawlo badan baan arkay. marka inta badanna xaqiiqatan marka la fiiriyo sidaan adiga kuu dhegaystayba hadalladaada u dhegaystayba xaqiiqada saad uga hadasho saan u arkayba waxaad moodaa emotionkaygu inuu markastaba sii yaraanayo oo sii baaba'ayo. waayo inta badan realitygaad ka hadashaayo ma tiraad meeshan lacagta waa laga samaynaya lacag waad ka samaynaysaa baad tidhahdaa laakiin waa inaad emotionkaa controlka. marka runtii waxaan sameeyaa maadaama horta aan life gaadhay waxaan sameeyaa suuqa xilli kasta ma Okay. targalayo hal xilli un baan targalaya casarkii baan shanta barka gal intaas baan waxaan ka rabo ka raadsadaa. haddaan ka waayo waa iskaga tagaa haddaan ka helana waxaygan ka qaataa waan iskaga baxaa. Okay, marka emotionka waxaa leedahay qorshaan ka samaystay ah inaan xilligaa tarir gareeyo, riskigaana aan riski gareeyo, inta kale waxa weeye hawlahay kala qabsadaa. hawlahay kalaan qabsa Sidaas. xaqiiqa. ah Okay, markaa hawla khasaartid marka maxaa isaga samaysaa haddaad tusaale tirarkii aad ku khasaartid oo kale sidee baad khasaare labaad inuu ku gaaro ama ina akoonkaaga qarxisa ama in ofa tirar sidee isaga ilaalisaa isaga? haddii tusaale ahaan aan khasaaro saddexda galabnimo markaan salaada casar soo tukado
ayaan tareerkayga fiiriyaa. Haddii tareerkaas uu faa'iida i siiyo faa'iidaysi, laakiin haddaan khasaaro oo stop loss uga dhaco, tusaale ahaan 7 iyo wixii loo gaadho ayaan tareer kala raadsadaa. 7 ilaa 9 3 saac fiidnimo intaasun baan raadsadaa. intaa haddaan waayo, laakiin haddii waa markaa haddaan tareer helo wey. haddaan tareer waayo oo intari fiican haddaan waayo, waa ka seexdaa suuqa. Intaa sometimes waxaan sameeyaa, xoogaa naftu way iska dhib badan tahay, mararka qaar waxaan samayn jiray, hadda inkastoo aan isbedelay, mita tareer foorkayga oo kaleba waa ka saaraa mobilkayga haddaan somehow mararka qaar Emotion yara direct. haddaan emotion dareemo. Okay, that's great idea. Okay, waa soo dhammaystiraynaa. Beer ma leedahay aad ku trade garaysid, oo mise beerka fursad ka aragta ku trade garaysid? may golli baan ku tareer, wax kale kuma tareer garaya. golli keliya ku tareer garaya. Okay, nice. Goldi. golli keliya. Goldi, masha Allah. Wax kale ma eegtid? GJ iyo may euro dollar iyo. mar baan GBYda fiiriyey, waa waxoogaa waan ku yara khasaaray. golligaasaan iska aaminay ilaah markii. tareerkana inta badan hal saac iguma gaadhaba. waa isi aan ku siiya macasalaama. Waa runta isaga ahaa waa aad u dheereeya. Haddii laakiin sidaas oo kale qofku volatility u controlo lot size-ka, oo lot size 0.6 iyo 1 iyo 1.2 iyo 1.5 waxa ka dhimayso qof 100,000 sita. Masha Allah aad way. Cabdiqanow, aada u mahadsan tahay. Ka hor, hal wax oo aad xoogga saartay oo aad guushan ku gaadhay baan kaa rabaa. Sidoo kale waxaan kaa rabaa inaad dhalinyarta hal wax u sheegtid oo talo ah kaga tegaysid marka aad isleedahay malaha taladaas dhalinyartu u baahan yihiin Soomaaliya si ay markaa suuqa lacag uga sameeyaan. walaa horta ustaad horta aad baad mahadsan tahay. wax keliya aan u malaynayo inaan guusha ku gaadhay, aan maanta halkaa ku joogo, waa khaladaadkaygii hore oo ii qoran, oo aan ii nowdgaraysan, oo aan meel ku qortay, kadibna maalin kasta aan fiiriyo khaladkan hore aad u gashay, maalin dambe yuusan kugu soo noqon. hadduu mar labaad igu soo noqdo yuusan mar saddexaad igu soo laaban. marka khaladaadkaygii hore waan aad u yareeyay inay dib ugu soo laabtaan. taas waa mid guusha aan isleeyahay waad ku gaadhay. midda labaadna waxa weeye emotionkaygii aan yareeyey, oo aan maaragtay de suuqii, maadaama akoon aan haysto, akoon life aan haysto, aan gaadhay inaan un mar kastaba ku dadaalo, ilaahumaan $100 ku daro, $100 inaan wax weynba aanan ka raadin, oo aan ku niyadsanaado. ilaan maba $100 maalin kasta cid heshaa iska heshaa ma jirto. aad iimaan qabto oo aad kalsoone qabto, aadan guri weyne noqon. labadaa qodob baan u malaynayaa inaan maaragtay inaan halkan ku joogo. talada dhalinyarada aan siin lahaa haddaan u gudbo, dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan waxay yidhaahdaan shaqo la'aan baa waddanka ka jirta, waxaana halkan ka jira, waxaana halkan ka jira. waddanka shaqo la'aan waa ka jirta, laakiin fursad kale waxay taallaa dhankan online-ka bay taallaa. laakiin waxaa adduunka la isku dhaafay dee personal activity-ga iyo inaad wax raadiso oo shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaq uu sameeyo. marka waxaan isleeyahay dhalinyarada waxaan ku waanin lahaa inay dee kulle waddankooda cidna uma dhaanto, hase ahaatee dee qofku uu sameeyo wax la yidhaahdo inuu dhankan online-ka walba forex dhankeeda aada loo soo fiiriyo. adigo hadda janis baa la haystaayo, wax fursado hore iteenkii iyo iyada waxaan la haysan baa jiray, oo de hadda akoonba waa lagu funded baad helaysaa, waa lagu maalga lacag baad bixinaysaa, lacag fiican baad ka samaynaysaa, wariyadaada aad ku rumayso. haddii tusaale haddii aad khasaarisana dee waad kabanaysaa, oo dee kulley isma dhiibisa. marka dhalinyarada waxaan leeyahay Soomaaliyeed, shaqo meesha way taallaa, meel kasta way taallaa, ama xagga joog ama xagga joog. laakiin waxa weeye shaqadu xarakaadii waxay u baahan tahay inaad forex oo soo saarto. aad iyo aad cabdiqanow, walaal jazakallah khayr aljaza. allah ku amaansado, guul badanna waa ku rajeynaya. waxaan rajeynayaa in akoonkaagaas sida dukaan qof haysta ay 100,000 dhex taallo oo ilaa 5 aad u ilaashatid, fursado kalena baadhid, hore u socotid, wax baratid, wararka fahamtid, muxuu ahaay risk managementiga xoogga sii saartid, and so on.
improvement aad sii samaysid. guul badan aan ku rajeynaya, aadna ugu mahadsan tahay codsigan aad naga aqbashay, iyo dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed talooyinka iyo waxyaalaha aadka u fara badan hawada usoo marisay, iyo sida aad dashboardkaagi lacagtaadi waxyaalihii aad samaystay aad u tustay, maadaama dhalinyar badan ay diidaan markay lacagta la baxaan inay saasoo kale waraysiyo ay u bixiyaan ama ay dadka kale ugu sii caawiyaan. adiga aadan kaaga mahad celinayna, guul badanna waa kuu rajeynaya. insha allah waxaan rajeynayaa waraysigan waraysigiisa inaa meesha 3,000 ah oo zero uu ku darsamay 30,000 iyo ka badan, adigoo inagoo ku sheekaysanana aynu isugu nimaadno haddii eebbe ka dhigo. aad baa u mahadsan tahay, habeenka ku wacnaado. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام. هذا ما